بسم الله الرحمن الرحيم أن وحكبرنا ويدينت What are functions of management؟ هدي أن حسوسنو إربحينتي هوري وحان كغسو هذان لي قيحيدا مامول أما management مركنا وحان كغا هدلينا functions of management أما هولها لغربو مامولكا كواس أوكالا planning, organizing, staffing, leading and controlling هدانا أن بلاونو إنان مد أقيحنو haddaan ku hormarno erebixinta planning ama qorsheynta midaasoo ah habka lagu dooranayo yoolalka ama hadafyada la hiigsanayo kadibna la go'aaminayo istaraatiijiyada la adeegsanayo ee resourceska ama agabyada loo baahan yahay in la isticmaalo waa maxay si loo gaaro ujeedada u degan shirkadda haddaan si kale u dhigno waa qorshe u degan shirkadda midaas oo lagu qeexayo kow waa maxay hadafka shirkadda labo goorma ayaa la samaynayaa ama la hirgelinayaa hadafkaas saddex yaa hirgelinaya markana aan qeexino qaybta labaad ee ah organizing ama abaabulidda waxaana ku qeexi karnaa waa habka la iskugu keenayo loona maamulayo khayraadka ama hantida kala duwan ee shirkadda sida dadka dhulka lacagta iyo wixii la halmaala kuwaas oo inoo suurtagelinaya inaan gaarno ujeedada u degan shirkadda markana qaybta saddexaad ee ah staffing aan isla aragno waxaana ku qeexi karnaa soo ururinta xulashada iyo shaqaalaysiinta dadka ku munaasabka ah shaqada iyo u qaybinta shaqaalaha waaxyo kala duwan oo ay ka koobantahay shirkadda oo waa in qof waliba la geeyaa meesha uu munaasabka ku yahay si loo gaaro ujeedada u degan shirkadda markana aan qeexno qaybta afaraad ee ah leading ama directing oo aan ku qeexi karno in la dhiirigeliyo lana jiheeyo shaqaalaha laguna gacan siiyo sidii ay shaqadooda ku qabsan lahaayeen kadibna loo gaaro ujeedada guud ee shirkadda u degan qaybta shanaad waa controlling midaas oo ah in la isbarbar dhigo sida loo rabay in shaqadan loo qabto iyo qaabka hadda loo qabtay ma isleeyihiin si kale haddaan u dhigno waa in la isbarbar dhigo hadafka shirkadda u degan ma la gaaray mise oo haddii ay jirto weecasho ama deviation in la saxo inta goorigoorta haddaba si loo guulaysto ama loo gaaro hadafka shirkadda waxaa laga maarmaan ah in shantaa shaqo ee aan soo aragnay ee laga rabo maamulka in la wada qabto fiiro gooni ah shanta shaqo qasab ma ahan in maalin waliba qofka maamulka haya uu wada qabto ee waxaa laga rabaa in ay ugu jirto xisaabtiisa in shantaba la meel mariyo oo la qabto midda kale shaqada badi ay iloobaan maamulka shirkadda inay qabtaan waxaa la sheegaa in ay tahay shaqada afaraad ee ah leading ama directing oo badi in la dhiirigeliyo shaqaalaha way hilmaamaan dadka maamulka haya taas oo dhalisa kadib in dadka ay isaga tagaan shaqada ama xataa haddii ay sii joogaan oo kale waxqabadkooda hoos u dhaco xog dheeraada oo ku saabsan management business vision mission goals and objectives fadlan ka dhegayso lifaaqyada hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay mahadsanidin waa inoo mar kale haddii rabbi idmo